tuuga dhacday guriga taliyaha guud ee booliiska Koonfur Afrika. Koox tuuga ah ayaa dhac ka geystay guriga taliyaha guud ee dalka Koonfur Afrika, sida uu sheegay afhayeenka booliiska. Guriga Generaal Kahla Stole waxay tuugadu ka qaateen 2 telefishin oo ah kuwa qaali ah. Tuugadu waxay xadeen 2 dhalo oo telefishin ah. Guriga madaxa booliiska hadda waxaa ka socda dhismo, waxaana eegaynaa suurtagalnimada ay ku dhacday arrintaas. Waxaan rumaysanahay in dhacdadan ay fuliyeen calooshood u shaqaystayaal, ayuu yiri Sarreeya Guuto Fish Naudi oo ay soo xigtay warbaahinta gudaha qaarkood. Taliyaha guud ee booliiska Koonfur Afrika Generaal Stole ayaa ka maqnaa gurigiisa markii ay tuugadu dhacaysay, waxa uuna ku sugnaa xilligaas aqalka baarlamaanka oo ku yaal magaalada Cape Town, sida ay sheegtay warbaahinta IOL. Taliyaha booliiska ayaa hadda dhibano u noqday falal dambiyeedyada ka dhaca Koonfur Afrika, xilli hadda cadaadis lagu saarayo inuu wax ka qabto falal dambiyeedyada sare u sii kacaya ee dalka ka tahay. Halka aad warkaas kala socoteen waa janalka Fuad Qabyaladeed. Fadlan like, subscribe and share. Waa xageena mahadsanid.